barnaamijka ama YouTube-kaaga aad ayaan ugu xidhanahay saasay tahay barnaamijyo kala duwan ayaad ku soo bandhigtaa ani barnaamijka aan aad u daawan jiray xiisayn jiray marka aad soo gelinaysa aan sugi kari lahaa wuxuu ahaa barnaamijkii Tijaabid Jacaylkaaga aniga oo maaragtay ku xidhan marba eegaya qalbiyada la dhaawacaya qalbiyadii la soo dhaawacay qalbiyada beenta loo sheegaya barnaamijkaasi bal ka waran xamaasadiisa wallahi barnaamijka horta barnaamij aad u xamaas badan buu ahaa oo aad u xiiso badan oo asxaabtu inta badan ay aad maaragtay u xiisayn jireen wala hadda xitaa meelahan ku duubayo oo kale aad baaba liiga horreyn jiray oo dadku ayagu iska joogo oo diyaarsan baaban tagi jiray macnaha xiisaha loo qabo assalaamu calaykum kulanti wacan oo wanaagsan maantana waa maalin kale ciyaartanada saad wada ogsoontidiin barnaamijka waxaan kaga soo muuqan jiray xagga su'aalaha maanta on waraysi la yeelanayo Munir Cabdullaahi oo ah YouTuber ku sugan magaalada Kismaayo dhalinyarta magaalada Kismaayo on speaker waa ninka ugu dhaqdhaqaaqa qaroon ayaanu su'aalo ka weydiin doonaa caqabadaha soo wajaha iyo maaragtay sida uu ugu dhiiraday shaqadan uu gacanta ku hayo soo dhawow walaal shay ma wad mahadsan tahay waan dhawahay aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale asxaabta ku xiran channelka Munir Cabdullaahi wa salaamiya aad iyo aad u mahadsan tahay maanta inaad soo dhaweyso oo anigii aad channelka igu soo dhaweyso aad iyo aad ugu mahadsan tahay waana dhawahay walaal okay Munir waxa tahay wiil aad u daayar haddana dhalinyarada magaalada Kismaayo YouTuberada ugu dhaqdhaqaaqa badan haddana shakhsi saameyn leh waxa tahay aan markasta ku xidhanahay barnaamijyadiisa oo markasta daawano markii ugu horeysay yaa kugu dhiiriyay inaad YouTuber noqoto ama social media inaad ku biirto sababta kugu dhiirisay horta asxaab badan oo way jiraan markii ugu horeysay aan bilaabay YouTube-ka aan bilaabay asxaab badan oo igu dhiiriyay way jireen oo ay ka mid yihiin kuwa ugu dhow hadda maaragtay ama wax isla duubno ama maaragtay aan inta badan ba aan iska aad iskaga dhownahay asxaabta kale marka asxaab badan oo way jirtaa igu dhiirisay asxaab badan oo aan igu dhiirinin oo inay jabiyeen way jiraan saan wada ogsoonahay shakhsiga dhalinyarada han markuu yeesho bulshadu soo bandhigtaa bulshadaas qaar badan baa niyad jabiya caqabado iyo maaragtay waxyaabo ku niyad jabiya ma kala soo kulantay waan arkay dad badan oo niyad jabiyo oo maaragtay igu dhahaa barnaamijyadan aad wado ama YouTube-kan aad wado meel kuma gaadhaysid macnaha YouTube ma iska daysid oo TikTok ma furatid su'aalo badan oo noocaas oo kale ah waan kala kulmay asxaabta hase ahaatee asxaab badan oo inta garabkayga taagan way u badnaayeen kuwa badan oo garab ay soo garab istaago oo markaa su'aalo badan maaragtay aad ii dhiirigeliyo oo hore ii riix way u badnaayeen way jireen Munir maaragtay barnaamijka ama YouTube-kaaga aad ayaan ugu xidhanahay saasay tahay barnaamijyo kala duwan ayaad ku soo bandhigtaa ani barnaamijka aan aad u daawan jiray xiisayn jiray marka aad soo gelinaysa aan sugi kari lahaa wuxuu ahaa barnaamijkii Tijaabid Jacaylkaaga aniga oo maaragtay ku xidhan marba eegaya qalbiyada la dhaawacaya qalbiyadii la soo dhaawacay qalbiyada beenta loo sheegaya barnaamijkaasi bal ka waran xamaasadiisa wallahi barnaamijka horta barnaamij aad u xamaas badan buu ahaa oo aad u xiiso badan barnaamij wuxuu aad u xiiso badan oo asxaabtu inta badan ay aad maaragtay u xiisayn jireen wala hadda xitaa meelahan ku duubayo oo kale aad baaba liiga horreyn jiray oo dadku ayagu iska joogo oo diyaarsan baaban tagi jiray macnaha xiisaha loo qabo bay cadeynaysaa taasina marka dadku qaarna ayagoo faraxsan bay meesha kale kacayeen qaarna ayagoo murugaysan bay meesha kale kacayeen marka aad buu barnaamijku u xiiso badnaa maadaama barnaamijku uu ahaa Tijaabid Jacaylkaaga weli gabadh maaragtay wiilka u sheekeynaysay hadee intu magaceeda garan waayay caqabad ma kala kulantay wax caqabad barnaamijka kala kulantay wallahi horta wax caqabado horta dadku inta badan waxay u badnaayeen ilaa hadda horta barnaamijyada ku jira YouTube-ka waxay u badnaayeen qof maaragtay qalbiga laga dhaawacayo oo la dafirayo la leeyahay war kuma garanayo ama kuma garanayo la dhahayo gabadhii tusaale ahaan gabadhii wiilka wacayso
uu dhahayo kuma garanayo kuwa badan oo sidaas ugu jiraan marka dee niyad jabtaa ka weyn ma jirto may wallah barnaamijka sidiisaba waxaan ani hadda maarta sheemay ku wareysanayso kamid ahaa dadka sugi la'aan jira marka aad soo gelinayso muddo barnaamijka kugumaan arkin sababta iyo maaragtay waxa ka dambeeyay inaad barnaamij joojiso oo naga hakiso xiisihii badnaa maxay tahay horta aad baa su'aasha la weydiiyay oo asxaab badan oo ku xidhnaa horta aad i weydiisay su'aashaas horta waxaan kaga jawaabayaa caqabadaha horta yaryar oo dhinaca ama faamil ha noqoto ama maaragtay si guud ha noqoto horta caqabada yar aan kala kulmay dadkuna ma garanayaan barnaamijkan oo barnaamijkan macnaha barnaamij qoray loogu sameeyay dadka halkan ma aha oo dadka reer Kismaayo bulshada reer Kismaayo ku xusay barnaamijka hase ahaatee waxa uu khadka ay ka daawanayeen uu ahaa oo ama Nairobi Muqdisho meelahaas laga duubayo ka daawanayeen khadka sidaas markaa keentay in macnaha dadku maaragtay xogaa maaragtay saasa macnaha ugu kaliftay aan hakad yara sameeyo oo barnaamij kale aan bilaabo inkastoo jeclaan lahaa barnaamijkaas inuu taxano noo noqdo oo noo sii socdo si qalbiyada maaragtay badan aan u ogaano heerka ay gaarsiisan yihiin oo rajaynayna inaad noo sii wadi doonto haddii Ilaahay idmo maxaad maaragtay xiga oo maaragtay ka dhex buuxiyo isdii kartaa bulshada waa ku qancinaya wasdii karaysaa wallahi horta barnaamijyo badan hadda aan soo wadno way jiraan barnaamijyo badan hadda aan rajaynayno inaan soo hirgelino sida hadda barankiyo oo public oo aan laamiga ku sameeyno sida hadda ama halkan aan ku sameeyno ama laamiga aan ku sameeyno public baranki ku jira oo aan soo wadno sidoo kale barnaamijkan hadda aan bilownay su'aalaha oo awal horena aan wadnay oo barnaamijka aan ka wadi jirnay oo ayaguna aan dib u soo celinay oo adigaaga dashayma soo wadaadiisada ayagana waan sii wadi doonaa insha Allah sidoo kale waxaan sameyn doonaa barnaamijka su'aalaha xogaa chance ku yar sameyn doonaa isbedel dhammaan ku sameyn doonaa insha Allah oo ay ka mid yihiin inaanu ballaarino oo aanu keenno maaragtay hadiyado aan guddoonsiino dadka ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan ayaguna sidaas oo kale waan soo wadnaa barnaamijyada noocaas aan soo wadnaa insha Allah oo aan ballaarin doonaa okay waa ku mahadsantahay ma tahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo dad xag garaad ka dhisan oo de maaragtay markii aad barnaamij sameynayso ama muuqaal aad sameynayso dad maaragtay jecel inay wax ka qayb qaataan mise waa dad aad mar walba caqabadaad kala kulanto qof xun iyo qof fiican waan kala kulmay reer Kismaayo haba u badnaadaan dadka fiican ee aniga taageeraha ee maaragtay garab istaaga oo mar walba dhiirigelin iyo garab isiiya haba u badnaadaan laakiin mid xaasida waa laga helayaa oo maaragtay xogaa aan jeclayn inaan hore u talaabsado midna waan ku darsanayaa Kismaayo sida way ognahay horta ma jiro YouTuber public baranki ama sida maaragtay su'aalo oo kale soo duuba haduu jirana hore uma dhiirisano oo macnaha maaragtay kuma dhiirana inuu hore u talaabsado taasna waxaan u maleynayaa caqabado xagga reer Kismaayo inay yihiin horta shakhsiga YouTuberka wuxuu dhiiridaa markay dhalinyarta maaragtay magaalada uu ku sugan yahay ay yihiin dhalinyar maaragtay hormarsan oo maaragtay wax kasta la jaan qaadi karaya Muniro waxaan ku rajaynayaa inaad noqoto qof bulshada Soomaaliyeed u ah qof ay ku daydaan oo maaragtay markay ay ku daabadaan ama lagu arko la dhaho ninkaas oo leeyahay waxaasan kaga dayanay ayaan rajaynayaa inaad noqoto waxaan rajaynayaa bulshada ku sugan dowlad goboleedka Jubbaland inaad tusaale iyo tayo wanaagsan aad u soo bandhigi doonto oo maaragtay meel wanaagsan aad ka soo bixi doonto guntii waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka maxaa ku soo koobi lahayd ama bulshada Soomaaliyeed waxaan ku soo koobayaa inkastoo aad su'aalaha ugu badisay waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka hal talo ama maaragtay hal waano oo aan u farayo dhalinyarada reer Kismaayo aniga dhalinyarada kale ma jeedo oo gobolada kale ku nool dhalinyarada reer Kismaayo wiil iyo gabadha hal talaan soo jeedinaya taladaas oo ah macnaha Kismaayo ma jiro qof macnaha maanta caan ah oo la dhigi karo macnaha qofkan caankii macnaha reer Kismaayo ka soo hadlaya ama Kismaayo jooga ma jirto ayagana u sabab ah inay macnaha magaalada ama horumarkeeda ama maaragtay hore socodkeeda ama wixii cusub la jaan qaadkeeda inuu qofku maaragtay uunan la jaan qaadinayo dib loo dhigo bulshada reer Kismaayo gaar ahaan dhalinyarada
ayaan fariinta u farayaa in macnaha dhiirigeliyaan oo ay garab istaagaan qofka dhalinyarada ah maaragtay ama YouTuber ha noqdo ama TikToker ha noqdo ama maaragtay qof social media isticmaalo oo wax soo tabiya ha noqdo waxaan kula talinayaa inay maaragtay ay garab istaagaan oo ay dhiiriyaan sababtoo qofku marka la dhiirigeliyo wax dhan ay u tahay qof maaragtay barnaamijyo soo duubi jiray haddii la dhiirigeliyo dhiirigelintu aad ay muhiim u tahay marka waxaan leeyahay qofka dhalinyarada wiil iyo gabadhba dhiirigeliya insha Allah aad iyo aad okay waa ku maasan tahay sida quruxda badan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay maaragtay su'aalahayga badanna aad ugu dul qaadatay jawaabo qurux badanna aad siisay waa kaaga mahadcelinayaa sidoo kale walaal aad iyo aad baa maasan tahay haddaba barnaamijka halkaas aan ku soo afmeeraynaa barnaamijka waxaana la socodsiinaysay anigoo ah Sheena Cabdi Maxamed qurxinta iyo duubista kaameraduna waa Saki Axmed barnaamijkan barnaamij la mid ah intaan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagnaa sidaas iyo amaan Allah